kursiga ragga raadinaya siyaasadda iyo magaca iyo maamuusku in badan buu diin la'aan dadka badaa oo rag badanoo kuraasida laga fujin waayey xataa diinta waa ku iibsanayaan kursiga si ay u xejiyaan gaal iyo dad iyo muslimba waa laayeen si ay maxay kursigaa u hayaan rag badan oo tujaarinina xooluun in la hela xalaal iyo xaaraan xaggay doontaba ha ka keentee dee soomaaliduna dhaqan ba iska lahayda xagga xoolaha inta ku fiicani marka horeba waa yaray dee walba geelaynu qaadi jirnay soo maaha dhaqankii baadiye soomaalidee hore dee geel qaad buu ahaa geelana dee nin muslimaa dareersaday oo iska lahaa kan dambana wuxuu u eg yahay xooluun ma yihin lacagun ma la helayaa waxay doonaan ka soo baxaane lacagun ma la helayaa labaduba lacag raadinta iyo mansab raadintu diinta qofka way fasaadiyaan buu nebigu leeyahy sidaa labada yey ee adhiga lagu sii daayey yeydu way dhib badan yihin yeyda qaarkood xoolaha inay dhaqdhaqaaqa u diidaan oo wada laayaan mooyaane marka hore maba cunaan markay wada dam ka siiyaan kadib bay wax ka cunaan halka libaaxu uu neefku cunayo unu qabtay inta kale aanu dan ka yeelanin marka maalka iyo sultadu asliyan waxay ka mid yihiin waxyaabaha dhibta keena marka waxaan leenahay taxaddiga koowaad ee taajirka muslimka ah hortaagani waa siduu xalaal u miiran lahaa siduu wax xalaala uu heli lahaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa ya'tii cala annaasi zamaanun laa yubaali almar'u maa akhada minhu am min alxalaali am min alxaraam xadiiska bukhaari dadka wakhti baa ku iman doona dadku aanay u aabba yeelaynin xoolaha ma xalaal baa lagu soo helay mise xaaraan ba ay kugu soo galeen aan loo aabba yeelaynin xooluun ma yihiin uu muhiimaddu tay waan xoogsaday buu ku leeyahy war haya waxaad ka xoogsanaysaa armaanay xalaal ahayn war waxaasi waa iska xooluun in la helo ayaa agtiisa mudan iyada aynu ognayna aakhiro waxyaabaha labada su'aalood leh wa can maali min ayna iktasaba wa fiima anfaqa labada su'aalood leh imaamu nawowina raxmatullaahi calayh kitaabkiisa majmuuca wuxuu leeyahay baabu lwaraci fi lbayc wa gayrihi waijtinaabi shubahaat dabeetana wuxuu cinwaanka ugu qoray wataxsabuunahu hayinan wa huwa cinda allaahi cadiim ina rabbaka labilmirsaad labada aayadood buu ku qortay xalaashuna waa caddahay siduu nebigu sheegay xaaraantuna waa caddahay siduu nebigu sheegay waxyaaba u dhaxeeyo dadka intooda badane aanay garanayninna waa jiraan waxa aanad garanaynin qofka ka dhowrsadaa diintiisuu dhowray qofka ku dhaca shubahaadkaasi inta badanina wuxuu la mid yahay ninkii seeraha boqorka dacalkeeda xoolaha ku raacay xadiiska riwaayadiisa bukhaarina waxaabay leedahay faman taraka ma shtabaha calayhi min alith kaana lima stabaana atrak ninka iskaga taga waxa uu kala garan waaya xalaashooda iyo xaaraantooda wixii u caddaada dee xoog buu uga tegayaa buu yidhi waman tara'a ninka ku dhiirada calaa maa yushak fiihi min alithm aw shaka an yuwaaqica mastabaan shubahaadka iyo waxaa la garanay ninka inta goor iska xaabsadaa waxay u dhowday kaasi xaaraantana inuu marka dambe xaabiyo